السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. haddii qofku isku arko kacdi badan ama dhowr jeer oo musqusha u laalaabanayo waxay ka dhigan tahay qofka inuu qabo sonkorow, kacdi macaan ama waxa afka caafimaadka lagu yiraahdo diabetic. qof kasta oo musqusha u laalaabta macnaheedu kama dhigna inuu sonkorow qabo. waana mowduuca maanta aan rabno inaan ka fargareyno oo ka hadalno. in qofku musqusha uu ku laalaabto dhowr jeer kacdiduna ay xanuujido ama uu waayo waxaa keeni kara xaalado badan oo ay qayb ka tahay kacdi macaanka ama sonkorowga. kacdi macaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha keeni kara inta badan qofkana shaki ku abuuri kara in kacdi badan uu yeeshay. waana qayb ka mid ah kacdi macaanku waxyaabaha kacdida badiya maadaama inta badan sonkortu aad u badan tahay. sonkortaas tirada badan waxay keenaysaa inay keliyaha culays badan saarto, sidoo kalena waxaa dhici karta inay infectionka tira badan soo dejido. halkaasina qofka waxaa dhicida kacdi haystii maadaama infection badan ay qaaday in kacdi yar haddii kusoo dhibicdo oo qofkii waayo. waxaa kaloo iyaduna sonkortu ay keentaa in jirka biyo badan ka lumido. waxaana la socda xaaladaha noocaas ah qofka miisaankiisu hoos u dhaca iyo oon badan iyo baahi badan oo haddii kacdi macaan uu qabay. halkaas xaalad ayaa la dhihi karaa qofka waa suurtagal in kacdidan oo qofku la baxsanayo ay sabab u tahay xanuunka loo yaqaano kacdi macaanka ama sonkorowga. waxaa kaloo jira xaalad kale, hormoon la yiraahdo ADH ama antidiuretic hormone. hormoonkaasi haddii hoos u dhac ku yimaado oo shaqadiisa gabo waxaa dhici karta kacdi badan in la sii daayo oo jirku uu kacdi badan sii fasaxo oo keliyuhu kacdi badan ay sameeyaan. sidoo kale waxyaabaha keeni kara inta badan waxaa ka mid ah infectionada ku dhaca kelyaha kacdi mareenka ama waxyaabaha la yiraahdo urinary tract infection, kuwaasi oo inta badan qofku u keena inay kacdidu aad u xanuujido ama ay gubto. sababtoo infectionku wuxuu aad u saameynayaa kacdi haysta. markii uu saameeyana waxaa dhicida qofkii kacdi inuu waayo. waxaa kaloo iyaduna keeni kara qofku inuu isticmaalo daawooyinka kacdi badiyaasha loo yaqaano ama diureticska. uurka ama dumarka uurka leh waxaa inta badan saaran cadaadiskaas oo ay ula sii jirto hormoono badan, kuwaas waxay keeni karaan inay qudhowda kacdi haysta iyo xoogaa cadaadis badan oo saaro. sidoo kale waxyaaba psychological ayaa sheegaa inta badan inay keeni karaan in qofku uu kacdi inta badan ay ku baato oo haddii qofku mataqaanaa si uu aaminsan yahay markastoo inuu oon badan uu leeyahay oo kale biyo afka inuu badsadana ay ku qasbiyo taasi oo aaminaad asiga ay ka tahay keliya waxaa dhici karta in mataqaanaa kacdidu aad u baato. sidoo kale odayaasha inta badan waxaa loo arkaa kacdida inay aad u gubto oo ay cararaan sabab la xiriirta qanjirka prostate ee kacdi haysta markii lasoo dhaafo oo meesha kacdi haysta ugu dambeeyda ku yaala. haddii xoogaa yara uu barar oo kale waxaa dhici karta kacdida in inta badan uu aad u saari waayo, sidoo kale xanuun badan ay ku qabato. haddii caabuq uu ku dhaco qofka caadiga ah ama ragga dhalinyaradaaba iyagana lagu arki karaa xaaladaha noocaas ah. waxaa kaloo dhici karta marka qaar oo la sheegaa in mararka qaar waxyaaba neerfeya la xiriiro kale muruqa kacdi haysta oo kale inuu aruur badan sameeyo, kaasina qofka uu ku qasbo in kacdi badan oo mararka qaar isku arko oo kacdi aad u fara badan u soo saaro. intaan kusoo koobina barnaamijkeena maanta oo aan ku sheegaynay in kacdi kastoo la cararo aysan ahayn in qofku sonkor uu qabo ee jiri karaan xaalado kale oo keeni kara. waxaan ka codsanaa insha Allah taala channelkeena subscribe noo saartaan asxaabtana la wadaagtaan mowduucan aad u mahadsantiin.